وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربنا جل جلاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله أخواتي وبناتي بارك الله فيكن. horta ilaahay naga abaalmariyo kulligeenba khaasatan idinka ilaahay idinka abaalmariyo. maqsuudka iyo ujeedada la isugu imanayo waa inaanan iloobin waxa uu yahay. waxa ugu muhiimsan ilaahay nidaam qaybi uu leeyahay jalla jalaaluhu uu noogu talagalay inuu naxariistiisa nagu siiyo wax kasta ilaahay adduunkan sabab uu yeelay. asbaabta ilaahay dambi dhaafka uu ku bixiyo adoomadiisa rag iyo dumarba oo ku soo dhaweeyo oo ku jeclaado oo naxariis iyo raxmad iyo uu ku siiyo waxaa ka mid ah kulanka ilaahay dartiisa loo kulmayo, ilaahay maxabadiisa loo kulmayo, dikrigiisa loo kulmayo, in la isxusuusiyo aayaadkiisa iyo sunnada nebigiisa calayhi الsalaatu wassalaam, in meesha qur-aan lagu akhristo, in ilaahay subxaanahu wa tacaala la xusuusto. waxaa weyn ee ilaahay laga helayo ayaa horta ka xeel dheer oo ka weyn waxaan fawaa'idda la yidhaha aada faa'iidaysanayso. laga yaabaa wax cusub inaadan maqal oo aada horay u haysay axaadiidta ama aayadaha meeshan laga sheegayo, laakiin kulanka ilaahay dartii loo kulmayo ayaa khayrkaa lagu helayaa oo naxariistaasi ay ku soo degaysaa. kii xadiidkii nabigeena saxiixa ahaa sala allahu calayhi wasalam. sideedana mu'minka iyo mu'minaduba camal kaste oo saalixa waxaa wanaagsan inay istixdaaraan fadliga uu leeyahay. fadliga iyo wanaagga uu leeyahay markuu istixdaaro oo qalbigiisa gashado ayuu u sahlanaanaya oo u fududaanaya oo dhib kastoo ka soo gaarana wuu u adkaysanaya. marka fadliga majaalistani ay leedahay waa inaan had iyo goor aanan iloobin. waa majaalis ilaahay jecel yahay, malaa'ig khaasuu ilaahay u soo diraa oo yimaada oo ka qayb gala, oo dabadeedna ilaahay oo caliim jalla jalaaluhu oo ka cilmi badan iyaga ayaa haddana lilikraami buu weydiinayaa xaggeed ka timaadeen. addoommo adigu aada leedahay yaa rabbi baanu ka nimid, oo ku xusayey oo ku tamjiidinayay oo ku weynaynayey. miyay arkeen imay arkin? kumay arag. hadday arkaan see bay noqon lahaayeen? way ka sii badnaan lahaayeen sidan. haye maxbay weydiisanayeen? haa, maxay ku weydiisanayeen? jannadaada ilaahay oo ku weydiisanayeen. oo jannadeeda may arkeen? maya. oo hadday arki lahaayeen waa ka sii badnaan lahayd raqbadooda iyo yacni jacaylka ay jannada u qabaan ay ku weydiisanayaan. oo waxay ka cabsanayo iga magangelayeen miyaa jira? haa. waa maxay? naartaada. oo naartaada may arkeen? maya, naartaada may arkin. hadday arkaan maxay samayn lahayn? waa ay ka sii dari lahayen. xadiidka macnihiisu sidaa ahaa. ilaahay wuxuu ku soo gabagabeeyey waxaan idinka markhaati gelinayaa malaa'igtaydiiye addoommadaydaas inaan u wada dembi dhaafay kulligood. malag baa odhanayaa la yidhi waxaa ku jira midaan iyaga ka mid ahayn oo muraad kale iyo dan kale u yimid. walahu qad kafartu buu ilahay odhanaya. isaga naftirkiisa waa loo dembi dhaafay. maxaa yeelay hum lqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum. kan iyaga la fadhiista walow yuusan kaba mid noqonine ku hongoobi maayo oo khayrkaas wax weyn baa ka soo gaaray. marka insha allah horta muraadka ugu weyn aynu leenahay aynu isugu nimid in ilaahay ka wada rajaynayno kulligeen kaa ha noqdo marka ugu horeysa. marka labaad mawduuca laga hadlay la doonayo mashaayikhdu inay idiin tafsiiliyaan. anigu aayado qur-aanaan markii waxaan jeclaa in dhallinyaradii ay akhriyaan, laakiin waxay iska jeclaysteen inaan anigu akhriyo. aayadaha markaa ii soo hormaray waxay ahaayeen aayado ilaahay uu kula khitaabayey, waad maqasheen. macnaha tafsiirkana waad akhrisataan, waad garanaysaan. ayado uu ilaahay kula hadlayey, toos ula hadlayey haweenkii nebiga calayhi salaatu wassalaam. kuwaas haweenka nebiga lagula hadlayeyna haweenka muslimaadkana waa lagula hadlayaa.
waxa ilaahay uu ka bilaabay uu haweenka nabiga uu kala hadlay waxa adduunyada xaqiir inay xaqiraan oo aakhira ay jeclaadaan inayna adduunyada jacaylkeeda iyo dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda qalbigooda ku weynaanin haddii ay saas xaalkoodu yahayna in aynan u suubanin nebigiisii calayhi الsalaatu wassalaam khayru khalqillaahi ahaa inay nolol la wadaagaan aayaddu saasay ku bilaabatay yaa ayuha الnabiyu waa amar min allahi qul liaswaajika waxaad ku tiraa in kuntuna turidna alxayaaةa اddunya waziinataha fatacaalayna umatickun wausarixkuna saraaxan jamiila haddaad tihiin kuwa adduunyada iyo quruxdeeda doonaya oo raba kaalaya waan idin furaya waana idin yani mataaca waxaa la yidhaha waxaa la siiyo almar-a marka la furo oo yani lagu kaba jabka soo gaadhay kaana waa idin siinaya si wanaagsanna waa idin sii daynaya macnaha noloshayda agtayda waxba kuma lihinin wain kuntuna hadaadiin turidna allaha warasuulahu wadaara alaakhira allah iyo rasuulkiisa iyo daar alaakhira kuwa doonaya haddaad tihiin oo jecelna faina allaha ilaahay acadda lilmuxsinaati kuwiina wanaagsan ee camalka saalixa la yimid muxsinaadka wuxuu u diyaariyey ajran cadiima ajir weyn ilaahay baa yidhi wax weyn hadduu ilahay yidhi waa wax kale wax weyn waa waxaan caqliga bani aadamka geli karin waxaa lagala hadlayay maxay ahayd markii sababu nusuulka laga hadlo aswaaju rasuuli llahi sala allau alayh wasalam ma ayna ka dalbin nabiga sala allahu alayh wasalam inuu adduunyo badan iyo filal u dhiso ama gurigii hore ay ku jireen ka bedelo ama qolkii fadhiga ka bedelo ama qolkii jiifka ka bedelo ama waxyaalaha hadda aan ku mashquulsannahay raggeena iyo dumarkeena haweenkuba ha usii badnaadeen lagu mashquulsan yahay ma ayna dalbine nafaqada inuu u yor kordhiyo nafaqadu xagee ka kordhinaya dee meeshaad maqasheen oo ah 2 bilood inaan dab la shidin yaa rasuulallah inta nafaqada noo kordhiya unbaa dalabkoodu ahaa jawaabtiina taasay noqotay in kuntuna kulligood nabigu waa khiyaar geliyey waaxidatan tilwa alukhraa buu khiyaar geliyey umana caaishuu ka bilaabay kulligood waxay dhaheen allaha warasuulahu wadaara alaakhiraan dooranay halkaasaad marka ka shidaal qaadanaysaa khayr oo dhanna halkaasuu ka imanaya wanaagaaga adiga gurigaaga walaashay muslimadee halkan fadhidaan ka bilaabayaan la hadlaya wanaagaaga aad gurigaaga uu ka bilaabanayo haddaad guri leedahay haddaadan guri lahayn haddaad gabar yar tahay haddaad xaasla tahay haddaad qof weynaatay aad tahay wanaagaagu wuxuu ka bilaabanayaa xub ullah warasuuluh wadaara alaakhira ood ilaahay jeclaato qalbiga aad ka jeclaato ilahay haddaad jeclaatayna waxaa calaamadaheeda ka mid a wuxuu ilaahay nacay ma jeclaanid adduunyada ilahay nacab yaha ma ladiin sheega horta allah ilahay waa nacab yaha adduunyada ma jecla allah laa yuxibu dunya isagaa abuuray isagaa dadka ugu nicmeeyey wamaca dalika isagaa xaqiray isagaa sheegay inaysan agtiisa waxba ka ahayn isagaa kitaabkiisa noogu sheegay haddii ilaahay agtiisa ay wax ka tahay inuusan dadka ku kufriyey waxba ka siiyeen kabasho biyaana allah ka dhige isagaa qur-aankiisa nagu yihi turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira idinku carada dunya baad rabtaan aniguna aakhiraan raba subxaana allah ilahay aakhira waxba kuma intifaaco allah laa tanfachu laa dunya walaa aakhira wala alaakhira nabigiisa sal allau alayh wasalam iyo zuhdigiisa iyo saxaabiyaadka iyo ummahaat almu'miniin iyo zuhdigani zuhdi ikhtiyaari buu ahaaye idiraari ma ahayn nebiga hadduu rabo boqor buu noqon lahaa dhulka iyo buuraha waddankiisao dhanna dahab baa looga dhigi lahaa ma uusan doonin leanna wuxuu ogyahay rabbigii koonka lahaa ee adduunyada lahaa inagu marti baan ku nahay oo shalay baan nimid berrina waa ka tegaynaaye kii lahaa inuusan jeclayn ayuu ogaaday saasaa laga rabaa ayatuha almuslima khayr oo dhanna halkaasuu ka bilaabanayaa tarbiyat اlciyaal xub ullaahi waxaa markaa waxaa aahaartiisii calaamadihiisa ka mida xub ullaahi warasuuluhu inaad dariiqiisii aada qaado inaad ilaahay jeclaato haddee mashaa'ikhdu qeybtii ay igu qaybiyeen hadalkayga yaysan hadhow icanaananin o odhanin waad ka tagto maadan ka hadlinin meesha aan ka soo geli karo waxaa weeye ilaahay markaaad jeclaato isna wuu ku jeclaan ilaahay haddii uu ku jeclaadana waxaa rabta waa helaysaa ay shay doonaysa ilahay ku siinaya waxaa la yidhi berigii hore dadkii hore waa la iska iibsan jiray dad baa
dad baa la iska iibsan jiray oo gabadh baa mid soo iibsaday markaasuu guriga keensaday oo khaadimada u shaqayso oo yani oo addoontiisii markaa ah yani gabadh saalixada ahayd oo muuminada markay hawshii iyo shaqadii iyo wuxuu rabay u dhammaysay ayay tihi xaajo kale ma leedahay maya ifasax marka waa hawl baan leeyahay rabbigeed bay hor istaagtay waa ama waa cabda waqafat bayna habeenkii oo dhan ba ilahay hor taagnayd markaasay isagii markuu saq dhexe ay tahay baa kacisay baa layidhi oo tiri yaa sayidii kac oo ilaahay xus habeenka yuuna ku dhaafine hurdadaan isku adkeeyey buu yidhi isagaa sheekaynaya ka bacdi haddana waxay hadal adag igula hadashay buu yidhi waqtiga saxarka oo salaadulfajriga ay soo dhowdahay ayaa waxay tihi ayu cabdi suwayn ant yani addoon xun baa tahay habeenkii uu sidan ku tegay adoon rabbigaa xusin markaasaan kacay oon weysaystay oo waxaan anugu agteeda ku tukanayaan waxaan maqlay buu yidhi iyadoo ku ducaysanaysoo leh allaahumma bixubbika lii fakfir lii ilaahayow waxaan kugu weydiisanayaa oon kugu dhaarinaya on ku weydiisanayaa xubbiga jacaylka adigu aad ii leedahay jacaylka adigu jacaylkan ku jeclahay ma aha ilaahu adigu jacaylka aad jeceshahay dartii iigu dembi dhaaf fabixubbika lii fakfir lii su-aal baa meesha ka timid oo waan weydiiyey buu yihi gabadhi waxaan ku idhi adiga inuu ilaahay ku jecel yahay ayaa kuu sheegay ilaahay inuu jecel yahay waxaa ii sheegay bay tidhi inuu xalay oo dhan ii ogolaaday inaan la munaajoodo oon isaga la faqo oon xuso adiga iyo kuwa kula midna uu seexiyey taasa aniga daliili uga aba taasaa calaamadii abayt inuu ilaahay hadduusan jeclayn iima ogolaadeen dikrigiisa iima ogolaadeen markaad ilaahay jeclaato oo munaajaadkiisa uu kuu furo oo dikrigiisa uu kuu furo wax alle waxaad doonaysa waa iska helaysaa khayra iyo dunya waa iska helaysaa salaaxa duriyaad helaysaa muraadkaagoo dhan baa ilaahay kuu sahlayaa ilaahay waa qaadir allah rabbulcaalamiina wax ciliili agtiisa ka ah ma jiro innaga iyo dacfigeenna iyo yaqiinteenna iyo macrifo la-aanteena iyo calaaqada aan rabbigan la leenahay oo sadxi noqotay oo daciif noqotay unbaa naga hortaagan mooye allahu rabbulcaalamiin qaadir calaa kulli shay xawaa'ijtaadoo dhan ilaahay baa kuu gudaya cid kalood u baahan tahay male ee rabbigeen aan baranno dikrigiisa aan ku dadaalno daacadiisana aan ku dadaalno waa sheekh cali oo ag fadhiya waa ximximaya wuxuu leeyahy waqtiga wuu iska dhammaaday meeshaan waqtiga waa la qaybsaday khayrkaasaan isu dardaarmaynaa in shaa allah muslimaat mu'minaat oo muxajabaat oo daakiraat lilahi caza wajalla inaad tihiin waa noo muuqataa ilaahay baan ka baryaynaa inuu idin ziyaadiyo sidaas baynu isku ogaanaynaa in shaa allah caruurtana yani intaa iloobine caruurtana qofkii ilaahay caruur siiyey kii kalena ee caruur doonaya weli helina allah siiyo insha allah caruurtana u duceeya oo ilaahay u barya wax kale oo hidaayadeeda iyo hanuunkeeda lagu gaarayaa ma jiro dadaal kaste iyo dhib kaste iyo wax kastood isku daydo waa siday la odhan jiray hal bacaad lagu lisay waxba ka dheefi maysid haddaadan rabbiga u cuskanin marka ilaahay cusko oo markaad adigu calaaqa fiican ilaahay la yeelato oo daakirad noqoto oo qiyaamu leyl tukato oo bayna yaday ilaahay oydo markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala ilmahaaga uu ku hanuuninayo saalixiin oo quratu acyunin kaaga dhigaya towfiiqda allahna waafajiyo baaraka allah fiikum